mareeyihii hore ee wakaalada biyaha Burco Fadxi Axmed Cabdilaahi oo maanta ka hadlayay munaasabad uu ku wareejinayay xilkii uu hayay wakaalada biyaha Burco ayaa ka hadlay caqabadaha hortaagan shaqada wakaalada biyaha Burco kuwaas oo uu sheegay inay yihiin mas'uuliyiinta sarsare ee wasaaradda kheyraadka biyaha maamulka gobolka iyo kuwa dawladda hoose oo uu sheegay inaanay bixin dakhliga lagu leeyahay waana kan isagoo ka hadlaya arrimahaasi runtii wakaalada biyaha Burco waa meel aad u dhib badan dhibaatadeeda iyo xasaladdeedana wadata runtii waxaan oran karaa waxa dhibaatadaas ugu wacan waa wasaaradda oo had iyo jeer wasaaraddu aanay daryeelin meesha wasaaraddu waxay u timaadaa inay wax uun ka qaadatay oo ma timaado inay wax la qabato run ahaantii anigu madani agaasimaha guud ee wasaaraddu makhraati uu ka yimid run ahaantii anigu cid gaar ah carabku godi maayo laakiin kolley way iska caddahay cidda mas'uuliyadda iska leh waayo sababtu waxay tahay wasaaradda waxa ugu qoran mushahar 30 milyan oo ay ka qaadato wasaaradda wakaaladda meel laga qaada ma jirto gobolada dalka oo dhan wareegto wasiiro qoran oo amar oo la siiyo isaga jeebkiisa gasha jooga inay dhammaan xakameeyaan oo wax laga qabto haddii la doonayo wakaaladdu inay sii jirto oo ay sii shaqeyso waxa maqan mashiino ay wakaaladdu leedahay mashiinada waxa qaaday amar wasiiraa lagu qaaday waa la gudbiyay waana la soo celinayay ilaa imkan lama soo celin horta ay ka xaysan hadii qalimataan anaga xataa dib u sameeyna waana runtii mid subxaanallah weeyaan waa ka xumay waxa kale aan doonaya halka inaan ka tilmaamo deymaha lagu leeyahay dawladda dhexe waxa lagu leeyahay deyn aad fara badan haday tahay heer gobol iyo haday tahay dawladda hooseba maayirkuna uu fadhiyaa cid lacag bixisa ma jirto hay'adaha dawladda dhamaan waxa la wada cabaabiyaha bilaashka dhibaataduna anaga nafuushaa contribution-ka magaalada wax qabadkeeda la qayb baan ka ahaan jirnay oo runtii waan ka qayb qaadan jirnay biyuhuna waa biyo lacag lagu soo saaray maaha biyo bilaash oo iska soo baxa maaha waa 13 bilyan yani waxaad garan kartaa inta ilaagtay 13 bilyan 925 milyan 518 shilin baa lagu leeyahay maayirka Burco oo ka jawaabaya eedeymaha loo soo jeediyay ayaa isaguna ka dhigay xisaabi xilmaale haddaan la xumaynin waxaan u sheegay inuu diyaar u yahay la xisaabtan maadaama ay jiraan lacag horumarineed oo ay geliyaan wakaalada biyaha Burco amar wasiirna lagu marareen mid wasaaradna lagu marareen waana ogeyn waanu ka xunnahay markuu tagay in baan ogaanay lacag buu sheegay fara badan uu leeyahay hebel baa meel baa loo diraa taalifteedu waa xaqdar oo meeshan la yiraahdo hebel baa 3 milyan loo diray haddii hore u jiri jirtay jiri mayso maareeya cusubna waxaan leenahay 30 milyan jooji maareeye wasiirka labada bilood u harsan tahay 30 milyan ka jooji in lacag lagu leeyo wakaaladu ay lacag badan ku leedahay waa jirta 8 milyan baan ugu qoran 8 milyan laakiin aniguna in ka badan baan leenahay xisaab baan ogolay keena la yiriyo soo bixi weyd marxaati ma baahan annaga laakiin dawlad hoose wax una kuma Barasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salmaan Ramaax ayaa isaguna si adag uga hadlay dhaliilaha uu dawladda u soo jeediyay maareeye Fadxi gacmo geel jiray maxaa loo oran jiray kor hoos baa loo dhaqaa kor looma dhaqo wax kasta isku qabne de xukuumadii waa tahay sheegeen haddan in waxyaabaha qaarkood media laga ilaaliyana runtii way fiican tahay anigu waxaan difaacayaa waa jeelka booliiska iyo masaajidada wixii gurigayga waa la iga qaadaya iyo xafiiskayga waana bixinaynaa waanu yaabnay markaas 13 bilyan maadaama biyima waxay noqdeen dagaaladu meelaha qaarkood inay nala galaan maaha 13 bilyan iyo DT galkaas fadhino aad iyo aad baanu malaha tirada qaldatay baanu nidhe wixii lagu leeyay wasaaradda waa la bixinaya wasaaradda waxaan faraynaa inay bixiyaan wixii hantiye lagu leeyahay maanta 195 kubu halka fahmi ka sheegay runtii waa nasiib darro lacagtaas in lagu yeesho wakaaladda waa nasiib darro ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee wasaaradda kheyraadka biyaha ayaa ganafka ku dhuftay hadallada ka soo yeedhay maareeyihii hore wakaaladda isagoo madmadow geliyay lacagta ka baxday wakaaladda ee muranka dhalisay waxaanu yidhi ka baxay agaasima waad maqlaysaa laftigeeda waxaanu jecelahay in kolley si gaar ah aynu uga wada hadallo in culayska laga qaado wakaaladda Burco
green line baa dhex maro oo laba ay qaybsan tahay hadday jirtay haddaanay jirinba waa wax media idin galay oo dee kolley warkaasi waa laakiin saaka ka hor dawladda laftigeedu inay kala shaqayso green line kala dhex yaallo maan maqal marka haddii green line meelkii ka dhex yaalay hay'adii dawladdana green line ka dhex galo dee in magaalada laga guuraa ka fiican wasaaraddu inay hanti ka qaadato wakaaladda wasaaraddu inay qalab ka qaadato wakaaladda maareeyaasha dhowr jeer baan wada hadalnay dee nidaam dawligeenu ku wada shaqaynaynaa nidaamka dawliga had iyo jeer waa qoran yahay war ma wixii qoraala been baad sheegaysaa igu idhahda way fadhiyaane waxaan ku idhi wixii qoraala ee sharciya ee qoraal ku soo baxa haa bixinteedu waa waajib alaab suuqa lagu kala qaatay lacag suuqa lagu kala qaatay system dawliya maaha mana jirto waxaa jira 30 milyan oo wasiirkii hore ee wasaaradda khayraadka biyaha baasha cali jaamac uu soo dikreeto ku soo saaray waa dikreeto wasiir wuxuu yidhi wasaaradda maaliyadda wasaaradda biyaha ha loo shubo bil kasta 30 milyan waxa ay ku salaysnayd inay tahay waxaan la yidhahdaa obstruction fee-ga wax alla waxa kale ee fadxi sheegay ee lacag wasaaradda kaga maqan ama qalab kaga maqan hadduu hal warqad keeno ay ku qoran tahay mas-uuliyadda anaa qaadaya anaana keenaya haddii la waayo waxa weeyaan waa tuugadana qofka bixiyaa lagu xidhaa waxaa nasiib wanaag maanta waxaa la sheegay dayn badan oo halkan laga qaatay dayn badan oo halkan ku qoran nasiib wanaag maanta waxay nala joogaan antidhowrkii qaranka alla wixii dayn halkan laga sheegay ama bangi ha lahaado ama cid kale ha lahaato waxaan wasaaradda waxaan soo marin antidhowraha qaranka oo aanay iyagu ansixin oo aanay odhan dayntaa waa la leeyahay wakaaladda biyuhu ma bixin karto waana amar cabdiraxmaan rooble cabdullaahi cabdiraxmaan trike telefishka caalamiga ee Kalsan magaalada Burco.